أخص مرك اللي هي أخص كوح على هذا والباب لقى قالوا دنيا مع عالمك الباب أما يريد مركان لنا هاي قف مركو دون يو شيء حرام إنه قالوا حبه هي مالك قالوا إن كان دون يو قري قاسي وحبه هي مالك قالوا مركا أخرسكو والباب كان لقى قالوا الدنيا ده هدي أي تهاي وحبرشة iyo hadii ay tahay waxyaabaha kale ee horumarka keenaba waa meesha laga gal weeyaan imaamkii weynaa ee la oran jiray Abu Ishaq al-Biri aqoonta iyo cilmiga markuu ka hadlayay sifooyin aad u weyn ku sifeeyay aqoonta markuu sheegay wuxuu yiri wa kanzu la takhafu alayhi lisan khafif al-himl yunqal haythu khunta أقول وحويا وشيء ألقى حذين وكنز لا تخاف عليه لصن وحويا كيد أما شيء أنا ذو سنين توقع يو وحكستوك حدا فقاد ديس يو إن الميل جيسا من الميل تكتانا ويفون ضعيف وأيو قف مركو شيء فهسي هاي أما حفتسي هاي ميل كستبدو الدنيا الله مرة ميل كستبدو الله قالوا ما تشري شيء كقاضي أما متخاني وكوحينيو إلهي سبحانه وتعالى آياته يقول القرآن وهو كورمي وحسودتي سورة الرجل سورة الإقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم إلهي سبحانه وتعالى النبي محمد وحكوري وحذا خدام مقع إلهي مركا وحي وكرنا سننا أخص كينو مهمة وين أما فائدة وين وليهي وراه هاي أمة اقرأ لابد أن تقرأ ومد لقولي وحاخريا ومركي هذه الدنيا النبي قد عليه الصلاة والسلام لو سودري لقب بالعابين وحاخريان ولا قوم عرمانين وحاخريان أما يشيغان أخذك قفكو حكوبرتا سفر عصب أما حكوب قرية قفكو سفر صالحانو كلا قفكو ما أنت بربريتشوغا سوى مقالدي سي عند عفين أيو حوغاني عالم وحكي جرورنا عالم كوحكي جرو حوغاني أنا وآخر سويان قفك عدونا مركا آخر سمينا ما نروح آخرين مهليو فكر عصب مهليو تاريخ أما دقن أما علمي أما وحكي سوكري قفك مهليو فايدوين هذا فربدن بو أخسكو ليه هي وغني عن التعريف أما أنت بدل الله قرنيو وعلى هذا أخسكو حكومية قراتك sidoo kale akhrisku wuxuu dhisaa hal abuurka qofka iyo waxa loo yaqaan naqdinta qofka qofku ka akhris badan yahay uu ka doodiisu ka dhisan tahay hadalkiisu ku adag yahay waa hadal la fahmayo dhinac u socda laakiin qofku markuu waxba akhriin ama waxba baranay waxa la yiraahdaa doodiisa iyo hadalkiisa waad garan kartaa qodobka labaad akhrisku wuxuu kobciyaa qofka luqadiisa iyo hadalkiisa iyo qofku inuu noqdo qof wax gudbin kara luqada oo kale waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu barto waxa kamid ah qofka inuu akhrisayo way akhrisku waa tiir kamid ah tiirarka luqada lagu barto luqada noocay doonta ha ahaatee akhrisku wuxuu kobciyaa qofka fikirkiisa iyo go'aan qaadashadiisa qofku markasta oo wax akhriyo go'aanadiisa iyo fikirkiisa ayaa dhisnaanaya oo noqonaya kuwa macquul ah oo la fahmi karo oo dhinac u socda laakiin qofku markuu waxba akhrin fikirkiisa iyo go'aan qaadashadiisu waxa laga yaabaa inay yihiin kuwa jilicsan akhrisku wuxuu ka qayb qaataa horumarka shakhsiga iyo ka bulshaduba markasta oo akhrido waxa dhisnaanaya horumarkeeda ayaa si wanaagsan u soconaya markasta oo bulshadu akhriska ka gaabisana horumarkoodu uu koobnaanaya